بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن السلام الدمان صومالية ولكن حسن عبد الله أبو سلمان وإذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي بولا ليال وادريمي كرتين صبر كقداشة إذا كان موقضة قبل أس إيو ويلكاس إيو ويلكي كله أيا بريهان يعني والباهين تقارعانا براها بلشدة آت وقد صدي qof walba ra'yigiisa iyo wuxuu isagu arko sida luqman ayuu kaga hadlay anigana baaritaan qof walba aqli ayaa ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala u gooniyo oo si gooniyo ugu fikiro waxaan jeclahay insha Allah ta'ala dhowr clip aan ka soo duubi doonaa qisadan iyada ah sida ila muuqatay sida wanaaga ku jiraan ayaan ka hadli doonaa horta Soomaaliyeey laab la kaca waa laga fiican yahay qofka bini aadamkan ala tool in la eedeeyo dhibkeeda leedahay su'aasha aniga aan qaba waxay tahay walaalkeen wuxuu yiri gabadhan aniga qaba intaas xaruur ee dhashay okay waa arin aad iyo aad u wanaagsan ninkan wuxuu yiri ana qaba tayib okay gabadhana way hadashay iyadana ma aamusin marka su'aasha meeshan taagan oo in la isweydiiyo u baana waxay tahay gabadhan hal maalin ama اسبوع قديس انت بحضي معنى طول قرية انت كتكتي ادي نكان السقاء او لكذا حيرا وسؤال طلبات انا كان مانت ايشالي مدعين بل الى وبلنا معه وسنوين كورسي هذا يدا افكار عن كده دميني ان مركورت سويدن ماشي لليه هاي وحان بأمالينا يا مركي ابليس لغسو الحسارة جنة ايو ان ملايكتا دحدادا oo arlada lagu soo rajiiminayo lagu soo tuuray in ay batahay meeshu ku soo caga dhigtay Sweden aan umaleeyaa sababtoo Sweden inta la sheego waa meel shaydaan xiradiisa oo ibliis guri ka dhistay oo wax walba xun oo wasaq ah Sweden laga helaa ama qaladaad islaam ah qosooyin badan ayaan aragnay oo maqalnay marka Allah niga badbaadiyo reer Sweden oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala haniga badbaadiyo sharta iyo shaydaanka Sweden fadhiya marka waxaan rabaa inaan iraado insha Allah ta'ala YouTube kan soo gali doonaa aad kaga bogan doontiin anoo qisadan aad u faahfaahinaya laakiin in kooban aan rabaa inaan ka dhaho gabadhan waxay sheegtay inay macnaha ka tagtay caruurteeda iyo saygeeda ogana tagtay markuu cadaadis fara badan saaray iyadoo ka cabsanaysa hadii ay dacweyso in caruurtaas ay gaalada u gacan galaan marka Soomaaliyeey wax in la hubsada fiican hubsiimana Soomaaliyeed marka waxaan rabaa walaalkayga hani odageeda ee caruurta ka dhalay in aan iraado walaalkayga qaaliga oo Soomaalidu waxay dhahdaa waraabaha yeera ee kan aamusan keeba daran adig ina aamusan tahay oo degan tahay wajigaaga waji degan yahay waa aragnaa in aad xaq leedahayna waa aragnaa laakiin الله سبحانه وتعالى يا حقيقة أقطن لبعض قبضان هديك كاتكتي أو رقم هذا يوروبي على إيطاهي ومدو إيقونو الشقي سنيسي انت اسمها حل أرادين ويسي انت سن قبضان أقع عنقلن ورابع بركي قبض قبلها وهيلب بالسل وميل يالنا ورابع كستو أيا أنقل أو ضدعنا مركزيدا درادد انتو سن قعانتا كودقين ninkaas dhalinyarada ah maxay ahaayto isaga waxyaabo badan oo sameeyay lagu eedeynaa la leeyahay intuusan gacanta ku dhigin maxaa ugu dadaali weysay in gabadhaas wixii ay ku qanci karto aad ku qancisid sababtoo gabadha ama gabar uqdadeysan waaye ama gabar qalbiga aad iyo aad uga jabsan ayay u egtahay ama gabar markii banaanka laga helay waxyaabo aan fiicneen inta lagu sameeyay la maskax dooriyay oo fal iyo balaayo iyo wax la mid ah sababtoo gabadha waa gabar maqan sida aad dareemaysid yani hooyo waa ognahay wanaaga ee leedahay hooyo waa ognahay xanuuna sida uu tahay hooyo waa ognahay beer la xawsiga ee leedahay marka walaalkayga qaaliga oo hadii ee dhacday in ay iyadii hataa maxay ahayd qalad adiga ka gashay inta dadka u bandhigtid wixii ehl ahaa oo adiga ka soo jeeday iyada ka soo jeeday naag waa la furi jiray weena macnaa xiradan way ka bixi jirtay caadi way qof macnaa ma ah wax iyada hadda ugu horeyso
gabdho badan oo Soomaaliyeed ragooda buriyay ee aragnay laakiin iyada maba ahba tii dad burisay ee waa tii iyada xerada ka baxday markii inay ku soo noqoto hadaa ku dadaali lahayd haddii diidana aad inta marqaatiyaal u samays faraha ka qaadi lahayd maanta fadeexadan ciyaalkaaga haysata iyo isqabqabsigan iyo dhagxumada caruurtaada macnaa dhagooda ku soo dhaceysa maanta kuma ay soo dhacdeen marka adigana qayb ayaa ka tahay mashaakilka iyo barabaleemka iyo dhibka meeshaas ka dhacay maxaa yeelay gabadhaas waa caruurtaada hooyadooda dhibka iyo ceebta iyo falxumada iyada gaartana adeeg ku gaartay marka adiga markii aad aragtay in wiilkan uu dibnaha ku wato ayay sheekadan soo shaacbaxday marka waxaan ku dhihi lahaa walaalkayga qaaliga ohow adigana inaad gartaada qaadataa loo baahan yahay ma social media waxba kuma qabanaya Allah subhanahu wa ta'ala ayaa xaqiina kala sooci kara kayga qaaliga ah aabaha dhalay caruurta hani walaalkayga qaaliga ohow anaga waa dareemi karnaa aabayaal aan nahay hooyooyinana soo dhalay yacni hooyo caruurteeda inta ka dhex baxday meel cidla istaagtay inta barabaleem yacni markaas gabadhaas ku kallifay ama haysta ama qalbi jab ah ama dhibaato ah waa dareemi karnaa markay ka tagtay caruurta iyaga ah ee yaryar ee u baahan hooyada ee u baahan maxay hadalkeeda ee u baahan يعني ريحده أباهن يعني وجهه إنه أركان markii inay ka tagtay adiga aqabsatay walaalkayga qaaliga oo aad dibadda dhigtay hooyadii iyaga caruurta dhashay oo ilaa heer aniga ma dhalin waa u soo waday isaga dhalay ee tiraada gaarsiisay walaalo miyaadan filaynin markii inay wax walba suuragal tahay inay samayso maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku yiri inna kayda shaytaana kaana daciifa laakiin inna kayda kunna cadiim naagaha shaydaanka dhagartiisa waa mid daciifa لكن تن الدمر كدغان وامد وين ايو كتنا رب سبحانه وتعالى marka en google adiga aad fidisay ama albaab adiga u furtay oo tiri albaabka weyn qaad oo ka bax soo ma noqonayso marka adiga laftiga ayaa u baahan in badan in lagu dabagalo oo la baaro wax gabadhan gurigeeda ka bixiyay oo caruurteeda go'aan ee uga qaadatay oo ay banaan cidla u istaagtay u shaqaysanaysay ilaa uu gacanta ku dhigo waraabo dibnaha dhiiga ku leh uu gacanta ku dhigo marka sidaa daraadeed aniga inta badan gabadha inkastoo bini aadan ee tahay haddana waxaan dhihi lahaa waxaan wax lagu sanduleeyo shay adiga lagu sanduleeyo iyo shay adiga kas ah ku sameeyay kala jiro مثلا haddii gabadha u baxdo maanta inay fuxsha sameyso zino oo iyada u bareerto u kaba gashato iyo markii inta يعني عدو هلو لغو قصبو إن لغو زينيستو لبا كلا تاي اسكو دنبنا ماها ما فهمي الله سبحانه وتعالى سورة النور نمركو كشيكينا يواتي ويري قبلها لغو قصبايو إن إيه معناها زينيستان إيغو قروشر إيه كقادنين دادكي الدوامادو آيان نمكي كزينيستان قروشر كقادنين كواسوا أكتر حكمكو إلى الله سبحانه وتعالى كسو دجي مركا قبلها لغو كلفي إن إيه برانكو أبعضو waxyaabo badan meeshaas ku hoos jiro walaalayaal reer YouTube-layaal iyo social media arrinkan si fiican looga fiirsado waxaan adiga ku dhihi lahaa horta social media waxba kuma qabanay Allah subhanahu wa ta'ala ayaan xaqiiqada og laakiin ehelka adiga ka dhalatay kuwa iyada ka dhashay inay dhexdhexaadiyaan oo wax isla fiiriyaan oo wixii la gooyo markaas lagu dhaqmo iyo diinta islaamka waxay ka qabtaa ku wanaagsan oo ku dana kuwana sharaf ah caruurtaadana sharaf iyo wanaag u ah taasaan ku dhihi lahaa intaas markaan kaaga gudbo wiilkan dhalinyarada ah ee dhakada xiiran isagana waxaan dhihi lahaa horta dambi dushaada ma ahaanin haddiise aad ogeed ama adiga aan gabadh nafteeda falsafaysay horta dembigaaga Allah subxaanahu wa ta'ala unbaa og anaga ma naqaano tan koowaad tan labaad sida ka muuqato nin dhalinyaro tahay oo heli kara gabdho yaryar oo heli kara gabdho kale oo aan la isku haysanin oo heli kara gabdho madax banaan marka haddii aad sida aad ku andacootay ama aad ku dhaaratayba aadan ogeyn
mar alla markaa ogaatay inaad isbari yeeshid waaye sababto adiga waxaa wanaag iyo sharaf iyo cizi iyo karaamo aad mar walba ka rabtaa iyo dembi dhaaf inuu kuu sameeyo rabbigii adiga ku qalqay ee kuu yeelay caafimaadkaas iyo quruxdaas iyo caqligaas ku siiyey ayaad ka rabtaa dembi dhaaf bini aadamka hadalkiisa waxba ha u aabayeelin waayo bini aadamka gaar ahaana shacabka soomaaliyeed ee aan ka dhalanay wax xun mooyaane wax fiican kama shaqeeyaan haddiise adoo maqashay oo ogaatay aad ku sii fara adeegtid oo ku adkaysatid oo gabadha iyada ay jecel iyo qadkan ka dhumina iyo macnaha aniga khatara ay waxaas ka dhaadhacdana hadda waa adiga iyo yeelkadaa sababtoo ah adiga hortaada waxaa adduunyo inaad dhaqatida rabtaa caruur iyo mustaqbal iyo aad yeelatid horumar marka sida aad yeeshay unbaa berito ku sugaysa maxaa yeele kamaa tudiin tudaan ayaa la yidhi man zana zuniya wax alla ajzaa man jaza alcamal wax alla waxaa samaysid oo kas camdan aad u samaysid unbaa lagugu samaynayaa marka nin dhallinyaraa tahay gabadhaan haddee iyada isku booqsan tahay oo ay been sheegtay oo ay maxeeto ku maqrisay oo ay ku mindikaasay mar alla markaa maqashay waa inaad dib uga gorataa oo rabbi gacmaha aad u hoorsataa oo aad sujuudda iyo soo jeedkaba ku oysaa oo aad toobatul nasuuxan la imaataa wiilkaasna aad telefoon raaligelina ama mubaasharan aad ugu sheegtaa arrinta aad farax kala baxdaa si uu ilaahay kuu baryeelo addoommadiisana ee macnaha berito amaamala kaaga markhaati kacaan adigana taasaan ku dhihi lahaa tan gabadha ii soo hartay hani adigana waxaan ku dhihi lahaa walaashayda qaaliya ahay horta dhammaan ragga soomaaliyeed waxaan u sheegi lahaa gabadha soomaaliyeed waa gabadhiinii maanta waa gabadhiinii shalay waa xaaskiinii iyo walaashiinii maanta waa hooyadiinii berito waa ayaydiinii saa dambe horta wax lagu cayaari karo ma aha gabdhaha soomaaliyeed allah subxaanahu wa tacaala ayaa dheeman ka dhigay gabdhaha soomaaliyeed haddaysan ahaan lehna soomaaliya jiritaankeeda ayaa qalqiil geli lahaa ama kartida ay leeyihin aysan lahaan lahayn waayo gabdhaha caalamka qaarkood waa aragnay mayd weeye marka gabdhaha soomaaliyeed allah noo xifdiyo aniga ka xasan ahaana ma aaminsani gabadh in la ceebeeyo ama gabadh lala yacni lagu digto ama lala tirsado ma aaminsan hataa hadday qaldan tahay in xarigga inta loo furo faraha laga qaado rabbi loo tugaan aaminsanahay laakiin fadeexada waa shay fool xun sababtoo ah gabadha maanta waa uma ciyaal 5 caruur ayaa ifka u joogta aabahood la joogaan maanta barxun ayaa ku reebteen horta intii u sababta ahayd oo soo agaasintay ama u sabab ahayd gabadhaas in ay sharafteeda saa u dilanto ama caalamka laga wada arko ama caruurtaas qalbigooda dhaawacayne horta ilaahay u toobadkeena idin dhihi lahaa oo ilaahay u soo noqda cafisna weydiista gabadha iyada saraaxa yani runta markaan ka hadalno adigana walaashayda qaaliyahani horta gabar aad adagaa tahay sida gabdhaha soomaaliyeed ama hooyooyinka soomaaliyeed lagu yaqiinay haddii aadan waalanin oo aadan isku dhex darsamin oo olyada iyo biyaha aadan isku darin gabar aad iyo aad u nasiib iyo ayaan badanaa tahay maxaa yeelay barabaleemka adiga ku haysta waa dareemi karnaa 5 caruura gabadha ka soo dhex baxday ee bannaankaas istaagtay inaadan jeceel u qabin ninka dhalinyarada ah aniga waa dareemi karaa laakiin barbaleem aad isku ilowsiinaysid ama wax kale oo maskaxdaada ka badan lagugu sameeyey aniga waa dareemi karaa oo aadan adoo saaxiyo caadiya aadan sameynin horta allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa intii dulumka samaysayna inay kuwa ay dulmiyeen oo madluumiinta araali geliyaan kuwa madluumiinta ana ay cafiyaan kuwaas hadday u soo noqdaan oo cafis ay weydiistaan maxaa yeelay ilaahay dulumka ayuu ugu necab yahay oo naftiisana uu ka xarimay addoommadiisana uu ka xarimay in laisku sameeyana waa xaaraam qatcan ah marka waxaan ilaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee rabbi intaa ka baqataan hadallada xunxun iyo waxa xunxunan faafina intaan joojino wax walba aan isku soo xirino isku soo jiijiidno oo wanaageena aan ku dadaalno sidii maslaxad iyo wanaag aan u sameyn lahayn waa walaalkii xasan cabdalla